waxaan caddaynayaa inaan isu taagnay waxaan ka codsanaynaa inoo ilaaliyo xasiloonida waxaan caddaynayaa inaan is-hortaag ku samaynay habka ay doonayaan xildhibaano farkutirisa inay dawladda maamulkeed ula wareegaan oo iyagu ay rabaan inay determine ku sameeyaan waxaan runta u sheegayaa hadalka uu ka hadlay gudoomiye su'aashayda ha ka jawaab madaxweynuhu meel kalu marayaa hadal madaxeed mudane hadalka madaxeed baad weydiisay waad aamusaysaa nidaamka dawladnimada haddaadan raacin mas'uuliyaddeeda adaa qaadi doona dawladnimadu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo uma baahna in ashuun lagu addimo ma ahin nin lagu cabsiin karo in aan waajibkayga aan garan waayey mana ahin nin loo sheegi karo danta iyo dowga dawladdan ay dooratay in aan ku dhaqdo waxaan rajaynayaa shacabka Puntland inay wakiil ka noqdaan aan hadalka dhamaysto si ixtiraam laan isu dhageysano madaxweyne u kaade xildhibaan habdhowryaasha si ixtiraam laan isu dhageysano madaxweynaha halka qof oo firimbiga haysta waa bixi kara hadduu rabo waa hal qof waa arkaya qofka firimbiga haya waqti ma hayo waqtigii qadada raalli ahaada waqti qadada la joogaaye walaal sanadkiiba haddii saddexdii bilood mar haddii la isu yimaado sanadkiiba haddii la isu yimaado in la is dhagaystaa wanaagsan